hoteelka caalamiga ah ee Shacaynaba waxaa maanta ka qabsoomay munaasabad nabad loogu xidhaayay isla markaasina lagu dhaarinayo waxgaradka cuqaash iyo culimadiin laba arday oo walaalo dhawaan shaqaaqa ku dhexmartay deegaamo ka tirsan gobolka Saraar. Munaasabadaas ayaa ugu horreynba waxaa lagu dhaariyay cuqaash iyo waxgaradka labada arday ee walaalaha ah midammadooda ku dhaartay inay nabadda dhinacooda ka adkeyn doonaan. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah sulaadiinta iyo waxgaradka guddiga dhawaan loo saaray xalinta khilaafaadkaasi kuwaas oo labada arday kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan adkeynta nabadgelyada. waxaanu marka hore ducada iyo aslaaxa iyo nabadaynta beeraha walaalaha iyo mashaqada halka ka dhacday ee maanta la xidhay dawana la dhaariyo waa qaadanay laakiin waanu qaadanay nabadgelyaanu qaadanay dad idina saasaan ugu ogaanaysaan waanu dhaaranay labadayada beeloodba haddii aan ka wakiilahay oo dhaarta kaga wakiilahay reerka looga maxamed la yiraahdo waxaanu qaadanay dhaartaanu qaadanay kalsoonida guddidana dhex joogtana waanu qaadanay dadweynaha dibadda joogana waxaanu ogeysiinaynaa inaanu qaadanay dhaar iyo nabad. ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala halkan isugu keenay waxaanu halkan ku joognaa guddidii dhexdhexaadinta labada beelood aadan baalle iyo looge oo shaqaaqooyin ay halkan ku dhexmareen oo laba marxun ay ku dhimatay halkan waxa jooga guddidii dhexdhexaadinta oo ka kooban salaadiin iyo chief caaqilo iyo guddidii beesha qayb ka mid ah waxa kale oo fadhiya labadii beelood looge iyo aadan baalle waxa halkan ka dhacday saaka dhaartii nabadgelyada iyo bilowgii hawsha. ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala waxaanu iyadana u gudbi doonaa kalsoonida qoraal ah labadii beelood waa TV-ga dadka ka aragtaan way dhaarteen 15 baa fadhiya jifidii iyo awliyaadamkii labada marxuun ee dhintay dhaartaasina sida maqlayseen waxa ay caam ku tahay looga iyo aadan baalle nin kasta oo loogaahi meel kastaba ha jooge dhaarta waa ku jiraado waa loo qaaday nin kasta oo aadan baallaah meel kasta ha joogo iyo debed dhaarta waa loo qaaday. hadaad WhatsApp wax ka soo hanuunin jirtay hadaad Facebook wax ka soo hanuunin jirtay hadaad waxa weeyaan maaragtay meelaha kale wax ka soo goobaabin jirtay labadii beelood hadaad telefoon wax ka soo maaragtay abaabuli jirtay labadii beelood wacad iyo dhaar iyo nabadgelyo ayay qaateen. waa in sida caama sidaas cid kastaaba inay nabadda ku shaqeyso. booliiskay hadda barsaabkii halkan ma joogaan ana matala gobol ahaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mahadnaq iyo ducaan israacinaya ayaan horta guddiga salaadiinta leh ee dhexdhexaadinta labada beelood halka u timi gobol ahaan horta aad baan ugu mahadnaqaynaa. mar labaadna waa u ducaynaynaa ilaahay waxaan leeyahay ilaahay guddiga dambigood ha dhaaf dambiga waalidiintoodna ha dhaaf. labada beelood halkan iyaguna soo ajiibay ee mashaqadu ka dhexdhacday ee walaalaha ee dhaleeyada ee gacalka ee wax walba isu ah ee harag sagaar ku wada saxan jiray iska daa wax kala bargay ma garanaysaa ragii wada buurna wada joogi jiray ee walaalaha ee mashaqada yar halka ka dhacday raggan ee soo ajiibay inay halkan wada yimaadaan iyagoo diyaar u ah guddiga walaalahood iyagoo diyaar u ah raggaana waa u mahadnaqaya iyagana. jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland.